aniga laba guri baan balleeyahay Canada labo waray bahaweentii bahayarta way inaad riga Maxamed kiga Mario ma sadana riga laakiin haddana mid kala reem hadii lisii guys shaashada waxa jabra 7 buuxi caawa wasaxay wax ma taqaan hees waxay dartaa ma taqaana ismaayo igeeya heestaas dhageysinta habeenkii marka live soo galo ku furi jiray war bal saara inuu qaadataan saara isoo qabto Canada marabtimiya Canada marabtimiya ilaa ku dhaay Canada marabtimiya war assalaamu alaykum wararta kulligii waa idin salaamaya boqortiiki Omar Rajib CR7 jabra waa idin salaamaya dhamaantiin هشام وكاغا والله هل هشام وكاغا بحيا سارة وبح صوت وردا ايماتين هذا روح وكربان جوجنا وكسو قبرنا سارة marka wax dirsta ana garanaa ee saga dhicin amala hasham long time aad baa idin salaamaya halkan niyo waxaan uga mahad celinayaa recommend lan dadkii xitaa emailka igu soo qoray aniga sideena safaaradda Canada ahay aad baan idin salaamayaa wax soo qabata ali weera soo qabo weera wax soo dirsanaysaa way gastiga ugu buuxa waa soo qabanaya weer abaayo soo qabanaya dadka ka turturaya gastiga okay waa waray inta waa maraas kala bixiyay meditiisi waa sanad faqeynaya hadda yani waalan taashay waran مسارناهاي مسوقارا قلكا مربرو هايد السلامي ها إن هذا قلبه هرتا إفرايو وصحر ولا كذا كوير يعني إن هذا معان هرتا الرباضية دي مودريتر كهيي لكن مو يعني عدكلا هودي بالمقرط CR7 شكيرو كما جرتو شكيرو كما جرتو gabadha Shakira waa gabar walaashannada waa gabar maaragtay dadka xumaanta waa qof dhalinyaro ah oo beesaaniyada honesta ma baanti anu Shakira ma lahayn qodiyada ha ee naloo soo dhex maray maalintii ayada ahayd oo naloo soo dhex maray oo lagu shaqaysanayay oo maaragtay jibiyada kale waa orbodiyada waxay ahaayeen Bolonyo iyo Tik runta anaad ku sheegay anoo meesha saaran baa أنا والله والله بالله ما أنت waxa kor uga baxweeray topigaas ma aha baadi haye inta kale saara soo qabaad waa soo ata wax soo darsan saara awe soo qabto saara qosol miya saara waa qosol oo akoonka GB Omar ina adeer marka live ka bacdo WhatsApp ku soo jabra waa ku salaamaya jabra waa ku salaamaya waa ka qadaa maxaa masaar baa ku dhagan ina adeer gaari baa lagu gadaya guri baa lagu gadaya ya ma وصاحب عمر بك وصاحبك بحال يسوع وهو الله تعالى waa arosta la yiri in adeer hambaliyo مسب شعبت بكل الجهات عمر واكاس saara qososhan masaaradisa yaa istakin kaagiya أكيس استكين كيجي سوري وايس إنوي فرحة أي تنبس أديك يوفيو وكنياش بعض هذا كود أو حد لا بعدك وأركي وحكومة لينا استكين كيجي أنا تاي سوري ما أكيس استكين كنينيها بعد كوستو كنينيها بعد كوستو فيتامينو أنا بفيتامين دي أعمل ما أنا أدي أمين ويس فيتامين عباه وكذا وفيتامينو كوده laakiin waa la ila gaaray luqadii waxaan kugu hadlayaa reexa markay reebara wahe mugo waa la ila gaaray abay mugo wax ma ka qaadayaan anaga dhana garabkaaga wadaadadii Soomaaliya joogan dugsiyada dhan waa la wada istaajiyo kulli hal ku taagan yihiin xaaji maxamed xataa hal adigu laakiin filimkan iyo daraamadan u soo dhigsatay waa diyaarad baan fuulay ninkii baan sii socda goorma diyaaradda fuush ديارة مفعول وارب إن أنفوله الديارة أركان أنا جو أفهم مع سلامين البورك جاي أركان صار دي بحضي أمار أتقطي وو فيديو قصده وكده يعني أمار ما آذن لكن وجعله إنا هذا
لكن وانا جعله انا كو ماذا لكن ما دام لي ده او مار ما اركي كرتد isbitaalka qof inuu ugu maadano raali ma laga ahan in la hadlo raali ma laga ahan weeragan maxaa loo tuuray weeragan waxaa raba kaajal camalna iska dhigo imaado isbitaalka aan fadhiisto ilaa ay ka soo baxayd meesha ku dhaweey ii suurta gali weyso ma isleedahay lacala haddaad isbitaalka igu iman lahayd waan ku aamini lahaa yes waa isleeyahay xataa waxaa isleeyahay inaan lii ogolaan lahaa inaan soo galo ma arkaysid inaan ku joogsado ma umalaysaa Omaro ma arkaysidna kuma joogsanin lama hadlaysidna kuma joogsanin wallahi garbahayga malaa'iga saaran halka shay oo celiyay waxa waaye fiisa u baahan tahay in lii dhahay ku dhawaad isbuuc aan ka daba cararayay inaan agtaada imaado fiisa u baahan tahay ideen xataa waxaan isku dayay inaan Holland ka soo degto ama Jarmal ama Belgiumka aan kadib tariin ku soo galo marka waxa liigu dhahay hadda wadamadaas aga degatid si sharci oo sharci ah oo adoo tariin saaran sharci daro wadan kale ku galaa lagu qabto dhibaato kaaga imaanayso anigana waa ogtahay yani dhalasho ma wato hadda leh baasaboor yar wata waxaan sidoo marka dhibaato isgelin cunugaaga yaraan waa ka tagaysaa markaasna maazin ma joogin oo aabiisa wato fasax ku maqnaay yani waa dareemi kartaa yani dhibaatooyinka saaray qalbiga ka ogsooni dad isla soo jabay oo waqti soo wada qaatay oo wax soo wada dhex mareen ay ku socon waayaan ama dhankayga ka socon waayaani wax walbo adduunkan dhaca reason buu ku dhacaa qadar bay ahayd laakiin mar walba wanaag iyo sharaf iyo karaamo hal mar baan kugu khaldamay halkii mar aan ku yiri Sheekh Cabdiraxmaan ha ku soo dhadhamiyo ayadana si fiican baan ku soo raali galiyay oo hees waxaan qaaday hadduu qadaf maalin dhacay de raalli how maadaan ku yiraahdaa inaan ku dhaho waajib bay ahayd intaan ku soo istaagay inaan ku dhaho saaray raalli how iska kay cafi haddaad khalad iga tabanayso laakiin adiga laftarkaaga waad igu khaldantay aniga waxay aysan baraarki ahayn oo ku jecel oo si dhaba kuu jecel baad shiikh magaalada bartankeeda ugu midagsay markaad tiraan sacafina Omaro markii haddana waad soo kala firayso waxaan arkaado haddana shiikh daaqadiisa kala laada marka waxaan yiri dadkaan ayaga isfahansanaa awalna ayaga iswatay isku daa faraha ku qaad halkaas aan kaaga hara kama sheegin hortaadana wax kama sheegin waa ku kalsoonaa ina gadaasheeda wax ka sheegin ma ogahay ina bini aadan aan khaldamayna malahan hadda adiga khaldanta ana khaldamay muhiimaddu waxa waa ina iscafino ilaahay dartiisa isku cafino shalay wanaaga isku baranay dad wanaag isku imaaday masal wanaag ka dhaxeeya ahaan xumaan inaan dhaxmarka laga yaabo haddaan wada soconay iyo haddaan aan kala harna xataa muhiimaddu waxa waa inaan iswanaajino aan iscafino ilaahay dartiisa adigana khayrka mar walba yani ii rajaysid sidoo kale anigana mar walba khayrka kuu rajeeyo facaaga u sareey asaagaaga ha u hoos marin mar walba kuu soo duceeyaa mar walba yani dhibkaagana way dhibaa dheeftaadana dheef ay tahay waqti walbana garabkaaga ah haddaa wax kuu qaban kara iyo haddaan waxba kuu qaban karinba waqti walba garabkaaga taagina xumaan intaas la egna kuuma qabo ilaahay dartiisana kuu cafiye hadda aniga kaa khaldamane oo yani kaftan iyo dabaalnimo iyo waxyaabo qaar ay iga dhaceen oo anigoo dareemaynin inaan qof kalente xanuun u geysanayo ama qalbiga ka dhaawacayo haddii kaftankii meel khaldan oo iga galay waa kaa raaligelinaa aakhiri adduun iga cafi wixii dhaca waa dhaceen wax la soo celin kara ma ahan muhiimadda waxaa waa inaa adigana si qalbi nadiif iyo cafisid aanna ku cafiyo sidoo kale anigana cafis aliga masaafir baad iga tahay waa ku cafiyey qalbiyan oo nadiifa khaladkii aan kaa galayna ka raali noqo 100%. waa kaa cafiya aakhiri adduun waxaa kuu qaba ma lahan ilaahay waxun kuma tuso intii aad iga yeeshay iyo intii aad ila qeyrootay iyo intii aad waxa weeye dhibaatadan ku jiray aad ila dareentayna beerka iyo bogaba kaa ogsooni amboo kula dareemi lahaa inay wax kugu dhacaan ma ogli dunida korkeeda intaad saaran tahay wax kastoo kugu soo dhici lahaa waa kugu dhaceen inay wax damba kugu dhacaanna ana raalli kama ilaahayna raalli kama aha addoomihiisuna raalli kama aha weligaa ayaa allaha qurux badnow weligaa ayaa allaha faraxsanow weligaa ayaa allaha shidnow weligaa ayaa allaha luquntaada kor u taag kartoomadaada yaryar oo miskigaa markay kusoo dhacaan dhagdharag aad ka siisid iyo farxadaada ku noolow aad iyo aad inta Soomaali Maxamed garabkayga saaxiibeyga ma halaawayo insha Allah mar walba waxaan ku weydiinayaa nin waalan miyan kula eg maya aniga ana eri walba afkaaga ka soo baxo boqolkiiba milyan aa aaminsanayaa ku dhahay inta
yaa rabay inaan waasho ama waali ii qorsheeyay baad islaaw asxaabteeda kala bar waxa la yidhahay waa waashtay ka sabar waaliya amin ma amin anu waxa aaminsanahay yaa ii qorsheeyay oo dabcay inay igu shaabadayaan waali wallahi dad cadow ku ele waa isdii karaa qof oo wanaagaaga qof wanaagaaga jecel kulay waxaad tirahdaa tolkaa dheh tolkaa tolkaaga mar walba madaxa Soomaali inaad noqotay oo Soomaali weyn tahayna waan ku faraxsanahay dheh maya ina Soomaali weyn weligaaga ahayd weligaaga Soomaali agteeda ka ahayd wareysanayo oo interview iga qaadayana adiga ay wareysanayo adiga interview iga qaadaya diyaar waay why not muhiimada ma ahan yaa wax kula damacsanay cadowgaaga wax walba oo kula damacsan yahay wax ku soo gaaray ma leh sababtoo ah waxa tahay qof wanaagsan qalbigiisa nadiif ah qalbiga oo ka xaaran oo qof walba iska aaminayo darabna waa ku soo qoray haddana waa ku leeyahay qof bini aadan ha aaminin ama tolkaaga ama walaalkaaga ama saaxiibkaaga ama qofka doona ha ahaado qof ha aaminin daacadnimadaada too much waadi haddaan qof la aaminin marka see loo noolaanayaa قف أمين هذا أمين يعني إسلالي أوكي إسلالي وحير بنكون شيء يا سارة هذا ذلك أمين وحلي يعني كان بان روي قضاء شكي بقضاء بان روي أنا وحنون كم إذا حنون هذا إسلالي أمين لكن إسلالي يعني هاف أمين هاف أسبوع بديبي يا صدق أو هاف أمين هاف أمين هذا إسلالي هذا أنت إسلالي أنت إسلالي سارة سلام عليكم يا ده سارة كان هو إذا يقولي بس أنا كان صدا مقعي وبحنا لا تلقى كده تلقى وطلع هنا بينكم شيء سارة اللي رهده مرة رئيسه قارتي مرة رئيسه قارتي أنا صار سارة عمرو حالي هذا سارة وين سوى عمرو يبدي بقى إسكاله هي أنا إسيسي والله بالله أنا بيكون شيء يبدي واحد في واحد صار واحد صار ما يصير أنا صار واحد صار لك أنا عمر ما هستي مركب واحد صوت دايرة عرف سوق عمر بحسين لا يضرب أخلاق بصدق أن هذا يقولك عيب الرواب اللي يسوق قدر ما كان مع عمر وفينا وارك دون ساعة ويرم حلو سوق من وين ولا طورة وير أيضا مسلم وأنا نقولك رمى عمر بربر ما يمقشين هذا قل كذا أنا مرضى بلاقي ما تور كره قفك أنا تورا ومذا أذكر على الكتاي دازت واي أنا قال لي تورين نات إذا بدي كتاي هاي صبر تديك والله بالله تكتب إني نكتشرين حقلك كاغلي هذا قل كذا مركا كوسو كره وتور كتا واحد مودريتر كوا يوي أكتر إذا أنا عندنا لقمة ظلمة واي لا يتوريا هذا بكاري هذا مديريتر يا كتوري كلام أنا أقول إننا ببلغه إننا ما سوق بتاعنا أنا أكتر إذا لكن قفك أنا يبغى ويسوى بريري كرتا لسن ويرو إيه هذا الشيء حساسية كقبل عقدة كتيرته غير أنا كصعبه aniga sida aan la ii dulmin oo Soomaali Maxamed ay u diiday in la ii dulmo adigana agtayda laguma dulmi karo moderator baan ka dhiga sharaf iyo karaama Umar waa walaalkay marna waarid buu ii yahay aadi aad ku soco come down landera tahay cidii ay istagaashantiin idinka ay istagaashan israaraadsada meelaha isku raaraadsada laakiin hadda aniga sharaf iyo karaama digula joogaysaa moderatorna waan ka dhiga adiguna cidna ha tuurin adigana laguma tuuri karo saaroy eedooyinkay weeye anigu dadna ma tuuro dadna ma baloogo tolkay weeye kan ka soo fakaday weeye Soomaali weyn uga soo fakaday welcome to the system barasho wanaagsan إذا أو مكلاش قري كان تيسلان خاصة يقولون أو صاروا بعسى والله زار اللي هذا سيد لو كل هذا غير كلاهي هل كان راشد على الإشاعة إن صار قري جوكت برهر على الإشاعة إذا دي بس كله عامل حسين بوري سلان خاصة يقولون ما دام صار قري كوكنت أنا هذا عمر أنا كان صدق
dadaan ninkii shaarbaha leh marka aniga adigaba waalida nagu cadaanaysa hadda buu nagu cadaa toosan ugu sii cadaato ana saxiixay hal mar waxaan rabaa inaan salaamo gabar aan abtu ahay oo la yiraahdo Sihaam hal ii soo qabto maro ma Sihaam soo qabnaa Sihaam ha you have to queen hay arti queen Sihaam hay weeray walaal waan ku salaamayaa waan ku soo qabanayaa laba qof oo kale aan rabaa inaan salaamo saha soo qabo labada gabdhood harti kuwin iyo hoos ii daji soo qabana gabdhaha xerta shiiqana wuxuu yiri alla soo qabta soo qabo sirdoonka ii daji labada gabdhood soo qabo daji walaal Omaro hal arin ayaan rabaa inaan dhaho oo ka sii degayaa si dhalinyarada kale fursad loo siiyo horta salaam waxaan kaaga wadaa ummadda Soomaaliyeed dhalinyarada gabdho iyo wiilal dhamaantood waxay leeyihiin salaan naga gaarsii insha Allah Omar waqti walba uu soo gali doonaa waa la sheekeysan doontaan waad la kulmi doontaan salaantaas horta naga gudoon niyow haddaad shalay kaliya ahayd maanta Soomaaliya oo dhan garabkaaga taagan walaal cid aad u mahad celisay jirin qof kasta waajibaadkiisu gutay qof kasta waajib wiil Soomaaliyeed oo walaalkiisa u garab istaagay cid oo mahad uga rabo ma jirto ma sha Allah waxaan ku leenahay nolow dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan inay ku dayan doontaa tahay sharaf iyo karaaman ku rajaynaynaa insha Allah Soomaalinimadaada ha waarto walaalkay halkaas aan ka salaamay aad u mahadsan kumaan aqoon walaalkay Soomaaliyeed oo aan bartay ku bartay oo la neeranimo ku bartay oo garab istaag ku bartay oo heel ku bartay oo hoo ku bartay oo dadnimo ku bartay baa ilaahay cadawaaga kuma jibiyo amiin brother insha Allah waa kulmi doonaa insha Allah dhamaantiin salaama aad baan ku salaamaa brother Omaro Alicia isoo qabay ku dhow soo joogta dadka requesting waa kadib lii wax soo qabataa Alicia isoo qabay iyo Sihaam soo qabta soo qabta ana xuma laba ereadeen ha waxaan sameeyay way soo galeen qolka Sihaam waxaan sameeyay abti gastiga soo gal harti ku in adigana gastiga dadka inta ka turti soo hayeen ba ma jirto laakiin waxa aad uga waxaan uga xumahay dadkii dhahayay Omar arrintiisa laga hadlin yaa musikarada Soomaali reer comment yaa aamusinaya mideeda kale inaa waalantihiin Soomaalidu waxay ugu jeceshahay wixii la yiraahdo yaa laga hadlin inay ka hadasho ina waalantihiin maba ciidan baran Soomaaliba ma ciidan baran Soomaali waa iska tihiin ma ahe Soomaali ma ciidan baran ar waxaas Soomaali waxa tiraadaan ka hadlin hawsha dabada u qabanayaan idinku waxaad u maleynayseen inaad iga reynaysaan oo dhanka iga reynaysaan Soomaali marka tiraadaan yaa laga hadlin Soomaali waxay jeceshahay wixii la yiraahdo yaa laga hadlin Soomaali sababta qabiilka u jeceshaa ma taqaanaan qabiilka iska daaya la yiraahdaa haddii laakiin la dhihi lahaa qabiilka wada Soomaaliga qabiilka wada haddii la dhihi lahaa bilcagsi la Soomaalidu u shaqaysaa way wadi lahaa way deyn lahaayeen waxay dhihi lahaayeen naga taa waxaan nala ku kakabaynayo waxaan nala ku khasbayo Soomaalida wixii la yiraahdaa daaya gadaal loo shaqeeyaa miya bilcagsi kulligood yaa Allah khilaaf waxaa walba khilaafaan haddaad Soomaalida tiraahid كده قبيل والله معانا وحكم ترى ما يحكي لي إنه حاد كوبت حد الصومالي هذا ترى قربها وحمية لنا سوي تهريب نسكده والله يحكي لي أدو وجهك تعال صاركم إنه يوم صاركم مركز في قناة والله تصير أنا وصومالي وبرت صومالي ذو ودتك كلية أو هو شقية بالعكس واحد طلع علينا يقول دكتور ترادان أمار أرنكي سكاء عمصة dadkii dad iigu dhawaa oo ehelkay ahaa intaas oo sano aan tuurt aanu yeesho ninkinayo inuu heesay agos maahan tawa kaunde maana maahan inta inayda dadkii aan ku hayay baa waxay yiraahdeen hal aamus Omar laga aamus sharaab Soomaalina waxay tirno intaasan ka siixan waay xanuun iiga weyn waa waay markii ehelka iyo dadkii aad Soomaali shalay ka soo dooratay ay yiraahdaan Omar ma ka seexanayno ay ku duceeyaan oo ooyaan
dadkii aad ka dhalatay ee intaas oo sano aad qabyaaladiistaha dartood u ahaydna ay yiraahdaan laga aamuso arrinkiisa bal ilaahay baa idinku dhaarshay arrinka inta miisaan saartaan yaa intaad miisaan saartaan bal arrinka miisaana shalay qabyaaladiiste waxaan ahaa majeerteennimadu ku weyn tahay waxaan ahaa hartinimadu ku weyn tahay waxaan ahaa haddii ilaahay ku reey daaronimadu ku weyn tahay intiiba waxay yiraahdeen hala aamuso macaa dadkii Soomaaliyeed bay qaarkood cadiifad ku beerayeen waxay lahaayeen maxaa kaa galay maxaa adiga kaa galay xataa dadka iigu dhawaa Cumar Maxamed gudahood qolal bay soo kala furteen meeshii aniga ii hadli lahaayeen challenge Oma aduu kaa dhashay oo ooyaya kuwana waxay yiraahdaan Sharma Boy aduu kaa dhashay oo ooyaya kuwana waxay yiraahdaan Nimco Joker aday kaa dhalatay ooyaysa kuwana waxay yiraahdaan Omar ooyaya kaa dhashay kuwana waxay yiraahdaan Xabiib ooyaya kaa dhashay anigiiba waxay iga dhigteen iyo annagii nala dhibaatay waxay naga dhigteen challenge waa dadka iigu dhawaa waa reer xirsi reer mahad hebel ducufo dad waxaan ka dhashay masaakiin ah xaqaygii iyo dadnimadaydii iyo sharaftaydii iyo sumcadaydii iyo anigoo waalan oo wali laygu sheego qol laygu xiray bay waxay yiraahdeen ha laga aamuso annaguna aan challenge ka dhigano aan isku caacayna dhexdeena aan niraahno Omar ooyayna aan ku cayno reer mahad Sharma Boy ooyayna aan ku cayno reer xirsi intaas baa aqligooda noqdo Soomaalina waxay tiri Omar aan u istaagno marka waxa aniga naxadin iyo culays iyo walbahaar iigu filan dhibaatadii la geystay maaha shalay inaan qabyaaladiista ahaa oo aan isku haleeyay qabiil ilaan Soomaali way ogtahay kama dhuuman karee runta fiican runta waa lagu dhintaaye ma Soomaali baan ka dhuuman karaa kama dhuuman karo shalay inaan qabyaaladiistaha way ogaayeen oo qabiilka jeclahay oo tolka jeclahay laakiin haddana runta idin sheegaya been idin sheegmaayo tolkay reer mahad baan jeclahay Soomaalina waa because of reer mahad markaan idin leeyahay waa family-gayga waa ehelkaygii meel kale aan aadama jirto no way to go no way to run no way to stay ma noqonayo shan oday baan ka tirsadaa waxa reer mahad aad aragtay oo dhan adeer baan u wadaa xagee aadaa waa meelna runtaan idin sheegaya ama igu naca ama igu jeclaada anu cidna iskama gadgado cidna dabada uma dhaqo cidna uma naageeyo hal mar baan dani u naageeyey oo dabada u noqoy u dhiigiyey halkii marna aakhira naloo wada dira dani aakhira nooma dirin waxa uu ogyahay dani male halkaas hawshiisa iska wataa waa odagaas iska qoslo miskiinka laakiin yaa wax baabi'inaya waxa wax baabi'inaya inta luflufka ka qaadata oo isle hebel hadduu jaranjaradan soo koro luflufkiina qiilqiil galaya ilaa meeshu wala kala afmiishaarsan yahay Omar hadduu Puntland idinku yimaado aakhiro idin dirayaa madaxtooyada waa ka bixi maayo bay aamineen dadkaas weeye dadka halkaas weeye muhiimadu waa laakiin aniga halkaas sababta u noqon waayo ma garanaysaan kalsooni buuxda oo aan qabo haddaan shiido oo aan isku buuqo oo aan wareero waxaan leeyahay reer mahadow miimkiiyo shinkaan cuskanayaa ceebna maaha sababtaa waxaa ceeba inaad gaajo ugu dhimatid qol cidla ah awowgay adeerkay wax walba markaan iskugu dara cabdi tahliil fanaan Soomaaliyeed oo lejan ah sandaqad ma laga soo saaray mise lagama soo saarin Muqdisho ku taala isagoo curyaana meedkiisii bint Umar Gacal DJ Suwariya nastaxayn ma ugu tagan Muqdisho iyadoo saas taala marka haddaadan shanqal dheerkiyo shiinkiyo miimka cuskan oo aadan dhihin family-gayga iyo Soomaali weyn haddaadan dhihin waa lagaa soo saarayaa yes of course waa lagaa soo saarayaa maahane waxaa lagaa dhigayaa biskeeti meel walbana waa lagaa bislaysanayaa aniga yaa isoo saaray hadda iga soo saaray markii Soomaali weyn iyo kobantigay qoreen iyo dagaalkii ay galeen laga soo tago my own family reer mahad tan soo fariistay miyaa maqasheen Soomaaliya tigid hal ay jaro baasaboorkayga waa la jeexjeexay safaaradda hal ay geeyo xagga hal ayga qaado miyaad maqasheen no halkaas aan ka ogsoonaa marka runtu way xanuun badan tahay qof kastana way dhibtaa war qof kasta oo ehel baad leedahay oo ehelka waa taqaanaa nin kasta oo ehelka waa taqaanaa Soomaalina waa tahay calanka shanta Soomaaliyeed buu ka dhaxeeyaa qof kasta guri buu degan yahay
gurigiisa isagoo u go'an yahay hadda for example baan idiin siinayaa buildingkan waa dhowr boqol oo qol weeye qof kasta qol buu ka leeyahay maxaa dadka ka dhexeeya meesha qashinka lagu wada tuuraa ka dhexaysa banaanka iyo baarkaha lagu wada ciyaaraa ka dhexeeya buildingka baa ka wada dhexeeya buildingkana way ku wadanayo qof kastaan apartmentigii qof walba qol buu ka sii leeyahay qof kasta qolkiisu leeyahay maxaa dadka ka sii dhexeeya apartmentiga marka adduunku waa sidaa runtu way xanuun badan tahay aniga waxaan ahay nin Soomaaliyeed oo reer mahada mana ka leexanayo mabda'ayga qofna igama leexin karo doonti nabi nuux kancaankii ka dagay ma noqonayo way daaweyseen Soomaalinimo igu daaweyseen oo waxa ay tustaan garabkiina iyo awoodiina inaan cidina binaadana la kala bixin karin gacantiina aniguna waa dadaalay oo haddana wax walba idila soo socodsiiyeen waa la qalan lahaa waa hore waa dadaalay commentiyo locationno meesha la geeyay wax walba dharag dhacdhacdac wiilal yar yar oo editingka bartay sida xan fresh iyo live ku dhiigle iyo wiilasha editingka yaqaano belada ah no ay la shaqeeyeen youtuber landera oo xora oo aan qolka xirnay sida qalan saki bilxaati saadiq ajiib landerayaalna way la shaqeeyeen laakiin cidii aniga iga aamustay oo lacagta ku bixinaysay inaan arrinkayga laga hadlin waa wada garanaysaan oo tirima laga hadli karo cidii challenge-ga ka dhigatay marna sharma boy abtiliidaan nimca joker oo ay soo dhigayay kuwan ay soo dhigayeen Omar oo qaylinayo oo dariiq taagan oo acle oo waa la soo dhigayay ya dhexdooda waa dadka aan ka dhashay bay ahaayeen Umar Xamuud bay ahaayeen Umar Samayid Umar Qoyene